dalkan Kenya waxaa ku sugan madax fara badan oo ka socota dalal kala duwan oo ku yaala qaaradan Afrika waxaana ay ka qayb galayaan shir ay qabanqaabisay qaramada midoobay oo looga hadlayo horumarinta iyo waliba dadka mas'uuliyiinta ka qayb galaya waxaa kamid ah boqorka xukuumadda dalka yar ee ku yaala koonfurta qaaradda Afrika ee loo yaqaan Lesotho waxaana uu doonayay inuu kulan la qaato madaxweyne Uhuru Kenyatta intii madaxweynaha aanu kulanka la qaadin waxa uu qodobaystay ama uu qoray khudbadii uu jeedin lahaa markii uu tago goobtii labada mas'uul ay ku ballansanaayeen waa la soo diyaariyay waa la soo dhaqaaqay shaqaalihiisii qaybo kamid ah xoghayaasha ayaa soo raacay waxa uu yimi halkii la wada kulmayay wada sheekaysi dheer kadib waxa uu rabay inuu hadal jeediyo hase yeeshee dhinacyada taataawiyo jawaabka la faray kadibna la waa warqadii wax lagu qoray maxaa dhacay dhinacyada ayuu eegay waxa uu eegay shaqaalihiisii waxaanu ku yiri meeday warqadii wax ku qoray deetana waxay yiraahdeen ma arkin kadib maxaa dhacay xamse maxamed ayaa nooga sii sheekayn doona Prime Minister, the Kingdom of Lesotho continues to be one of Kenya's strongest allies on the global stage. Ra'iisul Wasaaraha dalka Lesotho oo 3 maalin booqasho ku jooga dalkan Kenya ayaa waxa soo dhaweeyay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Labadan dal ayaa kala saxiixday xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir ganacsi oo kale. Hase yeeshee kadib markii labadan mas'uul ay saxaafadda soo hor istaageen si ay uga warbixiyaan wixii ay ka wada hadleen ayaa waxa dhacday yar oo dadka goobta ku sugnaa ka qusul siisay. markii hore madaxweynaha dalkan Kenya ayaa saxaafadda ka horjeediyay khudbadiisa iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen ra'iisul wasaaraha Lesotho kadib markii uu Uhuru dhameystay khudbadiisa ayaa waxa soo istaagay ra'iisul wasaaraha dalka Lesotho si uu isna khudbadiisa u bixiyo balse wax yar kadib ayuu ra'iisul wasaaraha Lesotho dhinacyadiisa eegay madaxweyne Uhuru ayaa isna isagoo yaaban isweydiinay talo muxuu gadaal u eegay ayaa durba ra'iisul wasaaraha wuxuu weydiiyay ergadiisa waraaqa ku qornayd khudbadiisa balse ergadiisa ayaa ku jawaabay inaysan haynin ama aysan arkin intaasi kadib ra'iisul wasaaraha ayaa intuu uu qoslay una eegay dhanka madaxweyne Uhuru ayaa u sheegay in uu lumiyay waraaqdii ay ku qornayd khudbadiisa madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo beesha saxaafadda halkaasi ku wada sugnaa ayaa jaantaba qosol dhacay To be visited. Once again, Prime Minister, karibu sana. Where's my paper? It's not there. Okay. No, there's no paper. My dear brother, you know that it was the natural thing for me to come here. labadani hogaamiye waxay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan sameynta guddi wada jir oo iskaashi ah oo ah isfaham is-afgarad ee la tashiyada labada geesood mid kale oo ka dhigaya cayaaraha ra'iisul wasaaraha Thabane wuxuu ballan qaaday inuu Kenya ka taageeri doono dadaalka ay uga jirto kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay isagoo hadlayay inta lagu guda jiray Banquet State madaxweyne Kenyatta wuxuu ku boogaaday boqortooyada Lesotho taageerada joogtada iyo midnimada ay Kenya la leedahay qaarada kala duwan iyo kuwa caalamiga ah Hamza Mohamed RTN Nairobi waa sheeka muujinaysa markii waxaad u baahan tahay aad ku hadlayso qof kale inay suuragal noqon karayso in si fudud ay ku dayacmayso wax badan ayaa laga baran karay warqadda ka dhuntay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Lesotho ee ku yaala koonfurta qaaraddan Afrika ee booqashada ku jooga dalka Kenya ee warqadiisii khudbada lumiyay deetana ku yiri way luntay